بسم الله الرحمن الرحيم subtilement معناه waxa weeyaan d'une manière légère fine difficile à remarquer يعني waa si yar oo fudud la fahmi karin la dareemin oo qofku una fiirsanayn يعني ku hoos marayso kale imika waqtiga oo kale una maraya oo saacadu way socdaan lamana dareemayna waa wax sida oo kala oo qofku fahmi karin uu dareemin de façon subtile si yar oo la dareemi karin weeyaan tusaale wuxuu yidhi il a subtilement changé de sujet pour ne pas fâcher son ami wuxuu markii yareed ba bedelay mawduucii uu ka hadlayay arrintuu ka hadlayay buu bedelay isla kolkiiba suuna saaxiibkii uga cadhoon yacni waa qof buu u isla hadleen way sheekaysanayeen marka hadalkii uu waday buu markii yareed ba bedelay suuna ninkani u fahmin u cadhoon ayuu bedelay bedelista uu bedelina si yaroo la fahmayn oo laga dareemin ayay ahayd marka subtilement si yaroo hoos maritaana la fahmayn la dareemayn bay ka dhigan tahay progressivement waxay ka dhigan tahay petit à petit par étape marba aayarba aayar marba markay ku xigta si yaroo yacni isdaba socda ayay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi vous allez progressivement enrichir votre vocabulaire avec ces vidéos waxaad biirsanay oo kolba kuu ururaysa oo aad u biirsanaysaa kelmadaha faransiiska daawashada fideogan aad daawanaysid marba marka ka dambaysa waxaa kuu biiraya oo kuu xoogaysanaya vocabulaireka iyo kelmadaha aad helaysid markaa si yaroo isdaba socda oo marba marka ka dambaysa ayay ka dhigan tahay progressivement kelmadan kale saddexaad waxa weeyaan éloquemment éloquemment d'une manière éloquent waa si yar oo qurux badan si yar oo laga soo shaqeeyey oo qurux badan ayay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi les candidats s'est exprimé éloquemment lors du débat ninkii kondidaaga ee musharaxa ee soo dhiganaya doorashada si qurux badan oo maad aragtay laga soo shaqeeyey ayuu u hadlay markii la doodayay markii isaga iyo qofkiisa hayeen ay wada doodayeen isagu wuxuu u hadlay oo khudbadda u jeediyey maaragtaanay éloquemment si yaroo qurux badan kelmadan kale ama adverbigan kale ku xiga wuxuu weeyaan mutuellement mutuellement waxay ka dhigan tahay de l'un à l'autre de façon mutuelle réciproque waxay ka dhigan tahay isku wada jir wada duubni wada shaqayn ayay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi ils se sont mutuellement aidés pour préparer l'examen way iscaawiyeen oo si wada jira oo wada duuban oo isku duuban ayay u soo diyaariyeen arrinta imtixaankooga si ay arrintooda u soo diyaariyaan imtixaanka iyo casharka ay u soo diyaariyaan waxay sameeyeen si wada duubniya ayay isku caawiyeen marka way iscaawiyeen way isgargaareen labada dhinacba si ay u diyaariyaan cashirkooga imtixaanka kelmadan kale shanaad ama adverbigan kale shanaad waxa weeyaan scrupuleusement scrupuleusement waxa weeyaan de façon très exacte conforme à la règle sida saxda ee xeerka ku dhaqmaysa ee xeerka waafajisan ayay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi il a suivi scrupuleusement les consignes de sécurité ninkani wuxuu ku dhaqmay oo sidii la doonayo ugu dhaqmay xeerarka amniga yacni waxyaabaha loo baahan yahay marka meel la joogo ama meel laga shaqaynayo ee qofka amnigiisa ah waxyaabaha lagu dhaqmo ee in la ilaaliyo ay tahay ayuu sidii la doonayay ugu dhaqmay marka wuxuu ugu dhaqmay de façon scrupuleuse amaba scrupuleusement sidii la doonayay xeerka waafajisanayd ayuu ugu dhaqmay les consignes de sécurité arrimaha ku saabsan amniga sidii la doonayay buu ugu dhaqmay waa sida imika baabuurta marka la wado oo kale ee dikadda ay baabuurtu ay socdaan shoofeerada qaare sidii la doonayay xeerka dikadda ee code de la route la dhahdo sidii caadiga ayay dad ugu dhaqmaan qaarna waa ka boodaya marka dambena accident sababaya waa sidaas scrupuleusement sidii la doonayay ee loo baahnaa ayay ka dhigan tahay cordialement waxa weeyaan de manière chaleureuse et polie si diiran oo edeb leh oo qurux badan bay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi elle nous a salué cordialement waxay noo salaantay gabadhani si diiran oo yacni qalbi furan oo farxada oo si qurux badan iyay noo salaantay yacni qof aan ku karhayn oo aan ku dhibsanayn oo kale siduu kuu salaamo ayay noo salaantay marka elle nous a salué cordialement waxay noo salaantay si diiran oo qurux badan oo ay ku jirto diiramaasha kelmadan kale waxa weeyaan méticuleusement
Méticuleusement waxay ka dhigan tahay avec un très grand soin. Si waxba aan laga tegayn oo aan waxba la isku saamaxayn oo caadi loo ilaalinayo ayay ka dhigan tahay. Tusaale wuxuu yidhi la police boolisku a méticuleusement fouillé wuxuu si aada u baaray nos bagages baagaashkeena. Marka de façon méticuleuse waxa weeyaan si yacni waxba lagaga tegayn aan waxba la dhaafayn ayay ka dhigan tahay. Marka méticuleusement avec un très grand soin si nadiifa oo yacni waxba la isku dhaafin ama waxba aan laga tegin sida iminka tan casir la soo diyaariyo kale amba casir laga soo shaqeeyay dad baa sidii quruxda badnayd ee loo baahnaa u soo diyaariya dadna way iska deesa sameeyaa shaqooyinkuna waa sida qof baa shaqo qurux badan oo méticuleusement ay sameynaya qofna shaqada in buu ka tagaa inuu sameynaya marka méticuleusement avec un très grand soin tusaale wuxuu yidhi la police boolisku a méticuleusement wuxuu si caadi oo nadiifa u baaray fouillé uu u baaray nos bagages baagaashkeenii iyo alaabtii aan siidanay booliisku uu baaray waxba kama tegin yacni haddii la doonayna la hurkufana alaabtii uu hurkufo uu rogay ayay ka dhigantaa kelmadan kale sideedaad waxa weeyaan inévitablement waxa weeyaan qui va forcément arriver yacni waa wax aan ku seegayn dhacaya ilaa waa wax dhacaya tusaale wuxuu yidhi si tu ne travailles pas tu vas inévitablement rencontrer des difficultés war haddii aad shaqaysan weydid oo aad casharkaaga aad si fiican u dhigan weydid tu vas inévitablement rencontrer des difficultés waxaad la kulmi oo ku soo gaadhi mashaakil baad la kulmi haddii aad shaqaysan weydid oo aad si fiican wax u dhigan weydid mushkilad ayaa kula kulmaysa marka inévitablement si aan maadaragtay maqnaanin aan la sheegay dhimashada oo kale waa wax dadka ku dhacaya inévitablement si aan la sheegin yacni qof kaste uu dhimanaya qof dhimashada ka badbaadaya ma jiro marka dhimashadu waxa weeyaan waa wax imanaya inévitablement si aan la sheegayn imanaya constamment waxay ka dhigan tahay tout le temps sans arrêt mar kaste si joogto ah aan laga tegayn aan laga boodayn ayay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi pour réussir il faut pratiquer constamment haddii la doonayo in la najaxo oo la dalaco oo meel la gaaro il faut pratiquer waa in lagu celceliyo constamment si joogto ah مثل arday baa lala hadlayaa waxaa laga yidhi pour réussir haddaad doonayso inaad dalacdid oo aad najaxdid oo meel gaadhid il faut pratiquer constamment waa inaad shaqaysatid oo aad ku celcelisid casharkaaga si constamment oo kala joogsi aan lahayn yacni maantaan wax dhigani baan ka boodi beri maaha si joogta yacni ardayda ugu xariifsan casharka ee casharadooda sida fiican u dhigta waa dad shaqadoodu iyo dadaalka ay wadaan joogta ah dadaal aan kala go'ayn weyn marka sanadkoo dhan ba ciyaalkaasi si fiican ba casharkooga u dhigtaan casharkoogana way xasadaan wayna dalacaan si qurux badan marka pour réussir haddaa inaad dalacdo aad doonaysid il faut pratiquer constamment waa inaad shaqaysatid oo aad ku celcelisid casharkaaga oo aad dhigatid si joogta ah marka constamment waxay ka dhigan tahay si joogta ah kelmadan kale waxa weeyaan inopinément waxa weeyaan de façon imprévue si aan la filanayn aan la moogayn la filanayn ayay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yidhi ils se sont rencontrés waxay kulmeen inopinement si lama filaana inopinement waxay ka dhigan tahay si lama filaana aan la moodayn tusaale muxuu yidhi ils se sont rencontrés waxay labadan qof ay isla kulmeen ay is arkeen ay wejiga isku dhisteen inopinement si aan la filanayn aan la moodayn ayay u kulmeen markaas intaas bay cashirkeennu maanta ku dhantay saxaabay haddaad ka hesheen like-ga iyo commentiga igula soo wadaaga cashir kale oo nooca ku saabsan insha allah ilaahay hadduu dhaado fiidiyoyo kale ayaa nigula wadaagi doonaa ciao